السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا سلام صاحب يال ما أنت نتوبيجين وحواي أنا طلع قربنا دوانها وحصوبتي ضد بدن وأمريكا إيشيان أفريكان كلبا أو شيء Somali for example somehow waxa la soo qaadana DNA test oo qof leeyahay waxa la soo jaraa 80% Somali ahay 20% Jewish ama 70% Pakistani and 30% waxa lagu leeyahay Somali ah ama waxa arkay qof aan DNA test afka la ka sheegay DNA test iska qaaday waxa ay soo baxday Somali ah hooyadii 88 kii meelaha aabaha la jiftay oo qaaday way kala tageen kuwa waxa ka sii dheer Afrikaanti oo maalmahan dambe iyo dad badan oo luqadda Soomaaliga bartay Soomaali ismooda oo ayagana la soo sharbaxay inay dhahaan Soomaalinimadu ma aha oo dhalasho Soomaalinimadu waa wadan magaciisa iyo maxaa lahaay dadka wadanka u dhashaa magaca iska leh wax nooca in laga feejignaado runtaas waxay tahay Soomaalidu waa mid kamid ah wadamada dunida lagu tilmaamo inuu yahay mono-ethnic country oo hal qowmiyad ku badan tahay majority ka tahay waxa soo raaca Soomaaliya tusaaleeda u soo qaadano Mongolia oo kale saldanad jirtay boqortooyo dad jiray ay maanta waa hal wadan waa hal qowmiyad oo wadan magacooda lagu tilmaamo Soomaaliya Soomaaliu ka yimaada magacaas la sheego muhiimadeena u soconaa marka waxay tahay in laga feejignaado inaan la isku dayin in isirkaaga lagaaga been sheego lagu dhaho Soomaalinimadu ma aha dhalasho sababta Soomaalidu isku DNA test ma aha isku waxa badan oo kala duwan yahay wax nooca dawladda runta waxay tahay maanta wadankii Soomaaliya laha qof walba wadankan u dhashay oo ku dhashana Soomaaliya noqona taasi kama dhigna in isku isir aan ah wala kala duwan waa sax even qabiilada dhexdooda waxa jiro marka tusaalada u soo qaadano deegaana waxa ka soo guuraa dhowr qof ama abaaro ama dhibaato loo geysto awgeed dad kale la soo dageen la dhiig baxeen la qaaraan baxeen dadkii wax ku darsadeen taasoo sababaysa in reerka meesha degan ay kamid noqdaan by wax la baxsasho awgeed iyo qaaraan laakiin dhalasho ahaan isirkooda iyo geneticalkooda wixii oo dhan waa ka duwan yihiin cidii ay wax ku darsadeen wayna dhacdaa Soomaalida gudahood qabiilo badan oo qabiil kale marti ku ah maantana sheegto ku dhex nool laakiin marka hadii loo DNA test la iska qaado la kala duwan yahay way jiraan kama dhigna marka 95% oo qabiilka meesha degnaa cidi uu imaatay hadii DNA iska qaado ay ogaadaan asal inay reerkan la dhalanin macnaheedu ma aha in reerku oo wax jira ahayn isirku wax jira nasabkuna wax jira aan la bedeli karin ayad quraana ku sugnaatay oo ayad quraankina la heeday ya ayuha naasu inna khalaqnakum min dhikrin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaa'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum anaga hadda qabyaaladka ma sheekeynayno waxa ka sheekeynayno waa cilmi muhiimadeena waxay tahay in bin aadamku Ilaahay ka bilaabay laba qof oo isguursaday labada qof shucuub ka dhigay shucuubti qabaa'ila ka dhigay marka nasabku waa wax jira waa lineage qofku aabihi ka dhaxlo aabihi kale ilaa iyo inta geey kartid marka qof hadda soo galay ama Oroma ama maxaa lahaay Canfariya ama la soo tababaray wadanka sa ognaad qowmiyado badan waxa jira Soomaalida ku foogan barashadooda iyo dhaqankooda iyo waxooda dadkaasi isku dayin inay ka dhadhaqsiyaan waxa la dhahayo Soomaaligu dhalasho ma ahane waa kaliya ka soo jeedid dalkan Soomaaliya la dhaho marka iska ilaaliya dadka maalmaha sheeganaya soo baxay oo soo ifbaxaya marka dadkan Soomaalida sheeganaya sidoo kale Jewish sheeganaya ama Soomaali sheeganaya sidoo kale intaas percent waxa ka ahay Bantu ama meel hebel sheeganaya kulli laga feejignaado somehow waa dhici kartaa qof oo mix ah laakiin kama dhigna in nasabku Soomaalaha oo san nasab ahayn magaca Soomaali waxa laga soo guriyay Soomaali ama Samalo si buugta hore ku qoran waana u dhalasho oo qabiilada Soomaali intooda badan ku abtirsadaan odaygaas in kasto maalmaha dambe ee tafaraaruq iyo kala duwanaansho fikir imaaday arimo dagaal iyo isku dhac ayaga xaqooda ama dhul ha noqdo ama dana kale ha noqdo marka waxaan dhilaar dhalinyarta yaani la faa'iideysan yaana nigula calaal jilicsan in Soomaaliya ahay half mix oo Japan ama South Korean ama Hindi ama Pakistani ama Jewish whatever ama Arab ahay wax nooca lagu soo gali Soomaalinimadu waa dhalasho waana dhaxal dhanka aabaha ka timaada ma aha qof walba oo ama hooyadiis Soomaali tahay nin Bantu dhalay ama hooyadiis Soomaali tahay nin British dhalay ama Hindi ama maxaa lahaay Pakistani dhalay ma sheegan karo cidda aabaha ka soo jeeda marba ku abtirsanay
marka sheegashada Soomaalinimada aad sheeganaysiin joojiya adinkana ka feejignaada insha Allah waana mahadsantihiin